kulanti nabdoon daawadayaal idil ahaantiin baa meel walba dunida daafeeda ka joogtaan waxaad ku soo dhawataan warka habeenimo ee telefishinka kulmiye warka waxa idin diyaaraan waa Safiya Maxamed Ibrahim Safiya Soomaali qodobada ugu doorka warkeena nacaa waxa kamid ah 4 bilood kadib oo maanta lagu tukaday salaada jimcaha magaalada Tani ee Garissa. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. دولة أمريكان كاو بوغاديسي xiriirka cusub ee Soomaaliland iyo Taiwan. shirka madaxa maamul goboleedyada Soomaaliya oo dib u dhac ku yimid. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeena habeenimo diyaar garowaan. markale isku soo noqod wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba waa habeenimo jimcaha ay soo galayso Sabti taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha Juulaay 2020 aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya warkeena caawa muddo 4 bilood ah kadib ayaa maanta salaada jimcaha lagu oogay masaajida magaalada Tani ee Garissa kadib markii madaxweynaha dalka lagu furay xayiraadihii saarnaa aan iraade hadalka madaxweynaha dib loogu furay qaar kamid ah xayiraadihii saarnaa dalka warbixina murtaasi ku saabsan waxa inoo haya wariyaheena Cabdicasiis Siyaad. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. muddo 4 bilood kadib waxa maanta magaalada Garissa lagu oogay salaada jimcaha taasi oo indhawaala ahba lagu tukanin sababo la xiriira amaradii dawladda ee lagu xiray isku imaatanka goobaha cibaadada iyo qaar kale oo badan. khudbadii salaada jimcaha ayaa maanta ku saabsaneyd xanuunsidaha coronavirus iyo amarada dawladda in la raaco sida in goobaha cibaadada dadka looga baari doono xanuunsidaha coronavirus waxaana bulshada loogu baaqay inay ka qayb qaataan hirgelinta amarada iyo in mar waliba lagu dadaalo nadaafada. haddaba waxaan dareenkooda ku aadan furitaanka goobaha cibaadada nooga warbixiyay shacabka magaalada Garissa oo kula tukaday masaajidka weyn ee ku yaala bartamaha magaalada Garissa. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqday dadka ugu horeeyay ee 4 bilood kadib maanta aan ku tukanay jimcihii taas ma sha Allah ilaah baan ugu mahad celinaynaa marka ugu horeyso awalan marka labaadna waxaan ku mahad celinaynaa dawladdeena oo runtii ayadana maanta noo furtay masaajidadii iyo iska socodka wadooyinka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay xanuunka naga dulqaado musiibada naga dulqaado ummadda islaamka ahna waxaan ayadana u rajaynayaa in ayagana maadaama masaajidada loo furay inay adkaarta iyo ducooyinka iyo quraan akhriska ay badiyaan si ilaahay xanuunka uu naga dulqaado amarkana loo hoggaansamo dawladda maadaama dawladdeena ay markasta ay ka shaqaynayso wanaagga dadkeeda iyo shacabkeeda in annagana aan u hoggaansano amarka dawladdeena ayaan dadweynaha kula ballamaya kulana dhiirigelinayaa. magacaygu Cumar Absar Siraad waa ku faraxsanahay salaadan jimcada wanaagsan aan tukanay masaajidaha naloo furay isku socodka gaadiidka naloo furay aad baan ugu mahadsannahay aad baan ugu faraxsanahay salaada jimcaha qiimaha badan masaajidaha naloo furay aan ku faraxsan gaadiidka naloo furan waa ku faraxsan musiibada ilaahay naga dulqaado aamin dhaha musiibada ilaahay naga dulqaado aamin. khudbadii lagaga hadlay maanta masaajidka Ibn Qayyim ee magaalada Garissa saad ogtiin walaalayaal in muddo masaajidu way xidhnaayeen dawladana xidhay haddana ayada dib u furtay xidhitaankaas oo ku saabsan cudurka dilaaga ee hadda ku soo kordhay adduunyada. khudbadu maanta waxay ku saabsaneen oo khadiibku uu kaga hadlay in maaragtay cudurkaas masaajidda horaan loo xidhay uu yahay cudur jira cudur dilaayana uu yahay haddana uu joogo oo weli uusan bixin oo waddanka uu ka jiro. wuxuu marka khadiibku ku soo qaatay khudbadiisa in maaragtay awaamirta dawladdu ay soo dejisay in la raaco talaabooyinka la rabo in la raacana la raaco dadkuna ay taxadaraan oo maartay taxadar gooni ay sameeyaan. arrintani ayaa imanaysa kadib amar uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalkani Kenya kaasi oo lagu furay qaar kamid ah xayiraadihii dalka saarnaa sida goobaha cibaadada iyo waliba isu socodka gudaha dalka. halkan aan ku suganahay waa masaajidka weyn ee ku yaala bartamaha magaalada Garissa oo si weyn looga tukaday salaada jimcaha iyadoo khudbadii jimcahana ay ku saabsaneyd xanuunka coronavirus iyo walibana amaradii dawladda ay fartay in la waafajiyo isla markaasina ay kamid ahayd in maskarada la xirto sidoo kale tan isku dhawaatanka la yareeyo iyo sidoo kale tan in masaajidka markii lagu tukado hore laga firaaqeeyo
culimada ayaa maanta khudbadda uga hadlay dhinacyo badan oo ku saabsan xanuunka coronavirus iyo in sidoo kale tana dib loo furay masaajidadii iyo sidoo kale tana goobihii cibaadada. Cabdicasiis Siyaad, warbaahinta kulmiye, magaalada Gaarisa. isla wararka gudaha ayaynu ku guda jirnaa. Madaxweynaha dalkani Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa ansixiyay sharci ku waajibinayo barasaabyada dalka inay yeeshaan ku xigeenno. Qodobkaasi waxayna qaadaa dhigaya wariyaheena Yusuf Gaas. madaxweynaha dalkani Kenya mudane Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci ku waajibinaya barasaabyada dalka inay yeeshaan ku xigeen. Tan ayaa ku qasbaysa barasaabka ismaamulka Nairobi Mike Mbuvi Sonko in wixii hadda ka dambaysa uu yeesho ku xigeen. Tan iyo bishii January ee sanadkii 2018 waxa banaanayd xilka ku xigeenka barasaabka Nairobi kadib markii xilkaasi iska casilay Igaade oo xilka hore u hayay. Sharcigan ayaa waxa hore aqalka sanadka u horgeeyay hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda aqalka sanadka sidoo kalena ah sanatarka laga soo doortay deegaanka Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen. Yusuf Gaas, warbaahinta kulmiye, Gaarisa. wararka Soomaaliyana waxaa kamid ah waxa mar kale dib u dhac ku yimid shirkii madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya kaas oo lagu waday inuu dhaco maalnimadii shalay ahayd. warbixintaasi waxaa inoo haya wariyaheena Cabdicasiis Agran. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan inuu maanta mar kale dib u dhac ku yimid shirkii madaxda goboleedyada ugu furmi lahaa halkaasi. shirka oo lagu madalsanaa inuu furmo maalintii shalay ahayd ayuu dib u dhac ku yimid iyadoo sidoo kalena maanta oo Jimcahana oo mar kale dib u dhacay. lama oga sababta ka dambeysay dib u dhacyadan hase yeeshee waxaa lagu madalsan yahay in maalinta bariya uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb. hadda ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb dhammaan madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo siyaabo kala duwan u kala gaaray magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirkaasi. waa tahay daawadayaal haddii aynu intaas uga soo laabano qodobkaasi haatana wararka caalamka. war qoraal ah oo ka soo baxay guddiga aqalka cad ee Mareykanka ayaa Taiwan lagu bogaadiyay xiriirka ay la sameysay dowladda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. guddigan waxay sheegeen in xiriirka dhex maray jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyo Taiwan uu ku soo aaday xilligii loo baahnaa. gudoomiyaha ammaanka ee aqalka cad oo hogaamiyo madaxweynaha Donald Trump waxaana qayb ka ah madaxweyne ku-xigeenka wasiirada dowladda Mareykanka. dhambaalkan fogaadinta ee Mareykanka u diray Taiwan iyo Somaliland ayaa ku soo aaday xilli labada maamul ay xiriir curdan ah ku dhawaaqeen kaas oo ay waxba kama jiraan ku tilmaamtay dowladda Shiinaha. Taiwan ayaa iyadu la aqoonsan yahay in qayb ka tahay xukuumadda Shiinaha isla markaasina caalamka uu aqoonsan yahay inay mid tahay Shiinaha inkastoo iyadu ku dhawaaqday inay tahay dal madax banaan. sidoo kale Somaliland iyaduna iskeed madax banaanida isugu dhawaaqday ayaa dalalka caalamka ka raadsanaysa aqoonsi ay uga go'do Soomaaliya inteeda kale. hagaag daawadayaal intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa warkii fiilmiyaad kala socotay warbaahiyaha caalamiga kulmiye TV Kenya warku waxaan kaga imanay TV-ga xaruntiisa dhexe ee magaalada Gaarisa. waxaan idin la socodsiinay anigoo ah Safiya Maxamed Ibrahim Safiya Soomaali. waxaa dhanka kaamirada iyo farsamadaba gacan weyn ka geystay wariyeena Cabdicasiis Siyaad. tan intaan ku kulmayna warkan warkiisa xiga sida iyo amaana Allah.